بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سودة هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cabdirashiid maxamed axmed wasiirka macdanta iyo baadroolka ee dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sanadkii 2016 hal kursi ka xaday beelaha banaadiriga kursigaas oo uu si sharci darro ah ugu wareejiyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoo xilligaasi adeegsanayay shaati dowladeed. fahad yaasiin iyo wasiir cabdirashiid ayaa mar kale waxay u ololeynayaan in kursi labaad ay ka boobaan dadka masaakiinta ah ee reer banaadiriga kuwaasi oo ay doonayaan inay mar labaad duudsiyaan xaqooda maadaama oo aysan ka mid ahayn beelaha hubaysan, waxaana ay doonayaan inay kursigan labaad u dhacaan beel kale si ay uga dhigaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soo socda. qabaa'isha meesha lagu soo sheegay 3 qabiil shiiqaal gandarshe shiiqaal jaziira iyo reer axmanuur aniga shakhsi ahaan inay banaadiri yihiin aan aaminsanahay ama banaadiriga lagu tiriyo. goorma ay banaadiriga ka baxeen ayada laftigeed haddii ay wax jiro tahay in la isweydiiyo waay, laakiin mas'alo waxaa jirto dadka oo lagu khiyaani karo ama dadka maaragtay lagu maray habaabi karaa jirto. matalan qabiilka reer axmanuurka anigaysaan ogahay oo ama yani sheeki igu soo gaartay xaqiiqadeedana kolley ayakaa laga sugaa ayakaana laga rabaa qabaa'isha ay hoos yimaadiinna ayakana insha allah waa noo caddaynayaan khaasatan kuwa yani banaadiriga. anigaysaan ogaa in maaragtay reer bandhawo inay yihiin. reer bandhawoga waa ambarella oo qabaa'il badan ay ku hoos jiraan oo axmanuurka uu ka mid yahay, laakiin dagaaladii sokeeye markay dhaceen qabaa'il badan gaashaanbuuray raadsadeen marka reer axmanuurka ka mid ah sida aan iisoo gaartay. gaashaanbuur uu raadsaday marka gaashaanbuurtan waa taqaanin sheekooyinkii qabaa'isha yani qofkii xoogaa wax ka fahansan waxaa jirto sheeko la dhahayo buur ahaaw ama buur ku tiirsanaw. buur ahaawda macneed waxa waaye nin xoog qabo oo aan la dhici karin cadow iska dhicin kara ahaaw. ku tiirsanawna waxa waaye haddii maaragtay adiga aadan ahayn ninkaas oo xooga badan haddaad ahayn ninka xooga badan ku tiirsanaaw. marka yani kuwa tabarta yar iyo kuwa maaragtay tabarta weyn waa isku darsan jireen, gaashaanbuuray noqon jireen, waa istiirsan jireen. dagaaladii soke waxyaala noocaas oo kala soo noqday, ma fahantay? marka arrintaasa ka dambeyso in maaragtay qabiilkii inuu inta ku xuub siibto qabiil kale u tago marka gaashaanbuur la samaysto. taasna mar haddii ay dhacdo qabiilkaas kale ayaa lagugu tiriya adiga. marka haddii ay xaq u leeyihiin inay kursi banaadiri u tartamaan hanala soo caddeeyo, markaas banaadiri aan xisaabsanaynaa. laakiin haddii sheekadii sidii aan sheegayay xaqiiqo jirta ay tahay, weli aniga wax badan inaan ka fahma aan u baahanahay, laakiin wixii ani sheeki igu soo gaartay aan ka sheekoonaya. aniga ma idin dhahayay wax go-an waaye reer aw xasanay ka tirsan yihiin, ma idin dhahayay wax go-an waaye bandhawey ku haren, ma idin dhahayay. sheekooyinkii aan maqlay aan idin sheegoyaa, laakiin xaqiiqadee shaki kuma jirto. dadkaas ay isku qabiilka yihiin oo bandhaweyga isla yihiin ayaa si fiican nooga fahansan ayakeenay jirtaa arrintaas sidii ay ka yeeli lahayn. laakiin aniga waxaan rabaa inaan iftiimiyo sidii aan sheekadu u maqlay ayna iisoo gaartay. marka dib waxaan ugu soo laabanaa tirada oo kuraasta banaadiriga. tirada kuraasta banaadiriga 5 iyo 6 kaliya ma ahan. tirada kuraasta banaadiriga sida maaragtay hadda kahor aan maqlay 9 kursi waay, laakiin xamar keligiisa waxaa 5. xamar 5 afarta kale
maamulayaashii kala jiraan. macnaha waxa waaye anaka maamulayaasha kalena ku jirnaa, maamulayaasha kalena deegaanaan ku leenahay, degmooyin aan ku leenahay. macnaha kaas way. laakiin inta badan waxaan maqalnaa 5 kursi oo hal qabiil oo Shingaani ka tirsan oo hal kursi ku fadhiyo, 4 qabiilna oo Xamarweyne deganne ay 4 kursi ay ku fadhiyaan. inta badan intaas aan maqalnaa. laakiin kuraasta reer Banaadir intaas kaliya ma aha. kuraasta reer Banaadir 9 waayo haddaysan ka badnayn, laakiin waxaan aaminsanahay inaysan ka yareen. kuraasta qabiilaa lagu qaybsaday, kuraasta qabiilo aa lagu qaybsaday. marka lilasaf kuraastii ma badna, tiradood waa yartahay. maadaama tirada ay yartahay oo Banaadirina la yiri 49 qabiil way, mar waxaa lagu leeyahay 50, mar 52, mar 53, intaas baa maqlay. laakiin waa dhici kartaa isbedbedelkaas inuu uu keenayo maxaa la dhahaa qabiil oo goonihiis u taagnaa oo qabiil kale maaragtay ku darsamay, marka tiradii oo 2 ahayd hal ay noqdeen. marka taasna waa keeni kartaa maaragtay in tirada saas ku naaqsto. laakiin markii ugu dambeysay 49 aan maqlay tirada inay tahay. marka 49 kaas markii la isku dardar 9 kursi way, 6 kursi ma 9 kursi waa markii la isku dardaro. marka qabaashii waa badan yihiin, kuraastina waa yartahay. problemka marka 4.5 uu leeyahay waxa waaye haddii kursi mar qabiil lagu qoro, kursi haddii mar qabiil lagu qoro ilaa 4.5 uu ka dhamaanayo, qabiilkaas kursiga lagu qoray weligiis ku fadhinayo. laakiin siisaba maaragtay 4.5 ma lagu talgelin inuu 4 sano ka badan ku shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, inuu 4 sano ka badan ku shaqeeyo looguma talgelin. laakiin waxaa dhacday sida siyaasiyiinta qaar ay analyze gareynayaan inay keentay in maaragtay weli aan la gaarin xilligii diyaar loo ahaa in 4.5 loogu baxo. marka taas waxaa keentay in maaragtay 4 sano kan lagu daro, haddana 4 sano kan lagu daro, oo markaas saas ay ku noqdaan 12 ilaa 16 sano inay isku noqdaan, ama 20 sano saas ay ku noqdaan. taasaa keentay. marka qabaa'ishii bannaanka joogay oo sugay inuu doorkooda imaado, doorkooda soo ku imaana, doorkooda wuxuu ku imaanaa in 4.5 uu dhammaado, markaas laga baxo marxaladii qabiilka wax lagu qaybsi jiray, laga baxo oo markaa xisbiyada la aado, oo markaa shakhsi kasto oo xiiseynayay inuu siyaasadda Soomaaliya ka qayb qaato uu ka soo galo dhinaca xisbiyaasha uu ka soo galo. marka xilligaa dheeraaday, xilliga markii uu dheeraaday qaylaa bilaabatay anaga halaas maan sugi karnaa. marka waxaa timid anaka door hanala siiyo, door hanala siiyo aad timid, fahanti. laakiin heshiiskii siduu ahaa, heshiiskii iyo qorshaha siduu ahaa, mar haddii qabiil kursi lagu qoro 4.5 inaan maaragtay inta laga bixiyo qabiil kale la geliyo inaan la samayn karin. waa la sameynaa haddii la dhaho yaa kaa yeela. qabaa'isha Soomaaliyeed sheekaas ma kaa yeelayaan. marka hadda Banaadir waxay keeneen sheekaas in laga dhex sameeyo. aday intaasaa fadhisay qabiil hebel kursi ugu kac. haddiiba ay Banaadir ka dhex soconayso waa in maaragtay gobol kasto, maamul kasto la geeyaa sheekaas. laakiin maxaa la yidhahdaa qabaa'isha Soomaaliyeed ma sheekaas kaa yeelaysa, khaasatan kuwa kuraasta ku fadhi ma sheekaas kaa yeelayaan. wax soconaya miya? wax soconaya ma ah. Banaadir dhexdiisa intaa keentay, dowladda inta Banaadir dhexdiisa keento kuwa kale ka aamusto ma samayn karto. marka waxaa dhacayso haddii matalan aa aragtay qabiil oo kursi ku fadhiyey oo marka qabiil kale u bedelay, haddii aa aragtid hal waxay ku dhacday, halkaas waxay ku dhacdayna waxa waaye mas'aladaasna dad badan oo ku jahwareersan.
halka wax ay ku dhacday waxa waaye labadaas qabiil kursiga uu ka dhexeeya. marka waqtigii doorashooyinka markii lasoo gaaro waxaa imaanayso labadaas qabiil in la tartansiiyo, ama waxaa imaanayso waxay ku xiran tahay sida ayakii marka hore heshiisku ahaayeen, in qabiilkii markii hore ku fadhiyey inuu markaas door siiyo oo u baneeyo qabiilka kale banaanka ka joogay saaxadda siyaasadda. marka laakiin sharciga waxaa labadaas qabiil inuu kursi u ka dhexeeyo. laakiin hadda waxay rabaan inay noo keenaan wax Soomaaliya dhan aan ka soconaynin, banaadir dhexdiisa kaliya ma la keenaa. marka taasna dadkii arkay oo rabay kuraasta inay maaragtay ay qaataan shaki kale u soo alifeen. waxay dhaheen maxaa la yidhaahdaa guddiga doorashooyinka aan isku milno, inaad guddiga doorashooyinka ay ku milmaan. waa qabaaisha rabo inay kursi helaan, waxay rabaan guddiga doorashooyinka inay ku milmaan, guddiga doorashooyinka maamul lahay inay ku milmaan. yani doorashooyinka waxaa kaga tilmaama maamul kasto 12 xubnaa la siiyey, heshiiska habraacana waxa waaye habraaca hadda laga tegi oo banaadiriga loogu gacan seeray. waxa waaye habraacaas waxa waaye maamul kasto wuxuu leeyahay 12 xubin uu leeyahay, maamul kasto 12 xubinaa la siiyey. banaadirigana saas oo kale, ama gobolka banaadirna 12 xubnaa la siiyey. 12 xubnood 8 ka mid ah gobol kasta haddii aad fiirisid 8 ka mid ah sida heshiisku yahay waxa waaye gobolka aa soo magacaabanayo, 3 ka mid ahna dowladda soo magacaabayso, dowladda dhexe soo magacaabayso. saas waaye 8 ka mid ah waxaa soo magacaabayo maamul goboleedka oo federaalka ka mid ah aa soo magacaabayo, 3 ka mid ah waxaa soo magacaabayso dowladda dhexe iyo federaalka soo magacaabayso. marka kii banaadiriga maxaa lagu sameeyey 11 ka mid dowladda soo magacaabay, 11 xubnoodba dowladda aa soo ansixisay soo magacaabay. marka mas'alada anaka hadda aan u baahnayn inaan ka doodno oo bariyahan aad arkayseen oday dhaqanka banaadiriga qayb ka mid ah oo ay ka doodayeen taas ahayd. dad badan mas'alada soo kureersan yihiin, dadka qaarna mas'aladaas inay dadka ka qaldaan ay rabaan. sheekooyin far ku dir yani sheekooyin oo fadhi ku dir ee waxay la taageeyeen baraha bulshada. dowladii oo hadda ku leh doorashooyinka hadda dhacay anaka musuqmaasuq uma rabno. lacala si hadda musuqmaasuq dhacayna horta fiican, musuqmaasuq haddii uu ka dhacayo doorashooyinka ma noqonayo kii oo 4 sano ka hor dhacay oo kale ma noqonayo. kii 4 sano ka hor dhacay ma noqonayo. ciddii isku haleynayso musuqmaasuq inay wax ku heli doontane waxaan aaminsanahay inay meesha waqtigu ugu dhumayo. marka insha Allah hadalkayga meeshaas aan kusoo koobaa. waxaan rajeynaa in maaragtay videogaas la share gareeyo si maaragtay u gaaro bulshada banaadiriga ay insha Allah uga faa'iideystaan. subhanaka Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.